عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أصحاب شرفت بدن قيمها بدن كسو دوادا كلن كلا يدود وداك iyo maaxda aqoonta waxa farxad ah inaynu ku kulanno kulankii labaad ee dood wadaag ee ku saabsanaa faafreeb mise faafreeb la'aan ama bilaa faafreeb hore waxaynu uga soo boganay qaybtii hore oo guud mar ahayd ama hordhac ahayd in wax badan laga fahmo faafreebka diinta islaamka waxay ka tiri si yacni uga hadashay dhaqankeena iyo dadka Soomaaliyeed si ku soo gaaray markii dambe waxa kaloo laga hadlay waliba Rashid oo in mar kale u baahanay inuu nagu soo noqdaa wax yar ka sii iftiimiyay caqabadihii xagga faafreebka ka dhashay markii lagu talax tagay ama sida qaldan loo adeegsaday maanta waxaynu marti u nahay Rashid Sheekh Cabdillaahi Rashid Garweyne inuu inala wadaago way aragnimadiisa dhinaca faafreebka xilligii kacaanka iyo dhibaatooyinkii ka dhashay dadka magaranaysa la soo gudboonada dadka hal-abuurka ah ama gabay ha tiriyo ama waxa qoro dhinacii warbaahinta markii dadka la caaburiyay marka mashaakilkii uu faafreebku keensaday isaga ayaynu xogta inta hore insha Allah taala aynu uga nahay marti inta ku xigtana weydiimo kooban aan hayo iyo weydiimo mudan oo idinka iman doona ayaynu insha Allah taala Rashid weydiin doonaa marka soo dhawaada mar kale magacaygu Cabdishakuur Maxamed Muuse waxaan jecelahay inaan kulanka ayaan inoo hagaya isaguna waxa qayb ka ah hagista Maxamed Xirsi Guuleed Cabdi Bashiir oo isaguna Sweden jooga aniguna Norway baan jooga Rashideen martuuna haynay wixii nala jooga isaguna ineen Ingiriisku inaga soo salaamaya oo ku jira marka soo dhawaada dhamaantiin farxad bay inoo tahay inaan kulanno Rashid baan la soo dhawaadeero adigoo aad iyo aad u mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay waan idin wada salaamayaa guddigiin Allah idin sharfo kullayba culaysna way tahay laakiin sharfid baan u qaadanayaa oo ay ii tahay waanaad ku mahadsantihiin okay Rashid aad u mahadsan tahay waxaan jecelahay dadka qaar way ku yaqaanaan qolaba siday ku taqaanaa koofiyado badan baad leedahay marka si yaro kooban oo ah hal minute aan ka badnayn in yaro kooban oo Rashida in dadku ma garanaysaa in suuga dhaadhiya oo ma garanaysaa in aqoonyahana suugaanta falaqeeya dhinacyo badan marka in yaro kooban oo ku saabsan gudmar yaro kooban oo ku saabsan taariikhdaada oo hal minute ka badnayn la wadaag waxaan u malaynayaa hadda ka hor baynu kulannay labadeenu oo ataa lafteeda ay weydiisay waxaan xusuustaa inaan iri warniyahow anigu qof kale waa ka hadli karaa laakiin naftayda ka hadalkiisu mar walba way igu adag yahay runtii waxaan ka jeclahay in cid kale ii sheegto anigu isma sheegi karo aan idhaahdoon magacaygu waa Rashid Sheekh Cabdillaahi ninkaad wejigiisa arkaysaane da'da weyn baan ahay haddaan islaahdo taariikhdaada dururaa waxba badan ka sheegi maaye meesha la yidhaha Cadaadley baan ku dhashay waqti hore afartanaadkii horaantiisii weliba waxbarashadeedii Burcay ahayd waxay kaloo ahayd Qaahira sida secondary-ga Qaahiraan ka baxay jaamacadda Qaahirana waan ka baxay sociology baan ka bartay waan ka soo noqday 70-kii xamar baan imi anigoo xamaasad iga buuxdo oo dhalinyaro ah oo kacaankii siyaad bare iyo marka aad ugu hanweyn dadkii ku hanjabay baan ahaa hankooda ku jabay baan ka mid ahaa dad fara badan oo maanta aqlabiyadda dadka Soomaalida maanta nool waa u sheeko laakiin waxaan ahaa dadkii aad ugu hanka weynaa laakiin hankoodii ku seegay baan ka mid ahaa ilaa tan iyo 17 magaalada Muqdisho aan ka shaqaynayay waxbarashada waan soo maray anigoo akaademiyadii hidaaya dhaqanka ka shaqaynayay muddo ka bacdina meeshii xafiiska siyaasadda loo oran jiray baan galay ka bacdina xisbigii intawaaga kacaanka Soomaaliyeed joornaal uu soo saari jiray oo bilo ahaabaan ayaan editor-ka ahaa dhinaca dhaqanka iyo af Soomaaliga iyo tarjumadiisa Carabiga ah iska soo dhaaf waxaa soo dhan intaa u dhaafi maayo hadba waxaa tidhi muxuu ahay bal hadda hal marir mara aad iyo aad baad u mahadsantahay milqacad baad noo dartay ama qaado intaas naga badan aad iyo aad baad u mahadsantahay
waxaan jecelahay inaad noogu yar noqoto guud mar naga siiso horta dad badani waxay sas ka qaadeen waxa loo yaqaano faafreebka anigu dawladdaana lama soo shaqayn laakiin dadkii iyadoo la qaxayo la kala yaacayo koray baan ahaa dad badan oo facayga ah marka dambena waxaana soo gaadhay cabsida faafreebka qofku markuu faafreeb noqdo wuu sii naxaa isagoo aan wax badan ka ogaan aan akhriyin xumaan iyo wanaag aan mogta wax badan ka ogaan dad badan marka waxa weeyaan waxa nacsiye sidii qaldanada loo isticmaalay marka waxaad guudmar yar naga siisaa faafreebku sidii uu Soomaaliya ama dawladdii kacaanku ay u hirgelisay marka arrinta faafreebka laga hadlayo iyo xukunkiisa Abdirahmaan marka laga hadlayo siduu isticmaalay iyo sidee ay ahayd oo qura maahay waxa weeye arrintu taa aad bay uga ballaaran tahay marka hore waxay u baahanaysaa in xukunka kalitaliska ah ee militariga ah ee waliba noocii siyaad barre shakhsiyan iyo siduu fikri jiray xukunka muxuu doonayay dadkana muxuu ka doonayay muxuu markaa ka faafreebay taasa waxay u galaysaa bad fara badan masaladu markaa maaha hadal la yidhi oo leeyahay laga gooyo halkan laga gooyo halkan laga gooyo maaha waxa weeye maskaxda dadka qofka intaanu hadalba ka soo bixin maskaxdiisa maxaa ku jira ilaa halkaas ay socotay marka erigan faafreeb waa erey iska caadi ah marka sidaa u maqasho waa faaf iyo erey waxba la faafreebaya oo la diidaya inuu faafo wax Soomaaliga hore ugu jiri jirayna maaha waa erey waqtigiisa aad barre la sameeyay wax la yiraahdo riqaabada wixii qoraala ama fan ah ama muxuu ahaay film ah ama riwaayad ah ama gabay iyo suugaan ah oo la eegayo la leeyahay talo marka cid baad eegaysa cid baana soo diratay ciddaasi maxay u jeedaabay su'aashu noqonaysa muhiimku waxa weeye waqtigiisa aad barre markaan aado waxaa jirtay horta marka ugu horeysa hay'ad la yiraahdo hay'adda faafreebka ama guddiga faafreebka la oran jiro guddi bay ahaayeen guddiga wax qoran baa u iman jiray waxa qorna wax Soomaali wadanka gudihiisa ka soo baxay ma ahaan jirin badanaaba wuxuu ahaan joornaalada dibadda ka yimaada waa kow filimada dibadda ka yimaada wax gudaha dalka gudihiisa ka yimaada waxa u badnaa riwaayadda walaal dee hadda iyo horaan uun bay noqonaysaa inay qofka u furan yahay mikrofoonka ha iska xidho uu soo sheego dabeeto meesha laga helayo iyo in Pakistan laga helayo iyo aynu u bahalkeyno aynu u howlgallo waa caraale inoo wada adeer hal lahaa waa qofka mikrofoonka ku furnaa marka dadka waxaan xasuusinayaa mikrofoonka iska xidha hadhow toole qofkuna gacantu taagi kara markuu su'aal qabo socod adeer hal lahaa hay'adani intay qaban jirtay inta bay guddi bay ahayd marka iyadu awood waxa hal la joojiyay may oran jirin awoodda may lahayn waxa ahayd wixii la yiri yaanay faafin bay jari jirtay filimkay ka jari jirtay riwaayad oran jirtay hal laga saaro ku oran jirtay heesaha lagu heesayay ee nagabigoodaba iyo kuwa shaqaba kuma lahaynina marka raadiyowga la geeyo raadiyowga ayaa wixii aanay dawladdu doonayn halkaas wasiir baa jooga waxa jooga dawladda u shaqeeya kuwa dawladda u shaqeeya iyaga laftooda ayaa heestii marka la arko inaanay anfacaynin oran jiray ma heestan raadiyowga gabigeeda ka bixi mayso oo taasina waa waji faafreebeed oo kale markaad u fiirsato joornaalada dalka gudihiisa ka soo baxa joornaalada kale ma jirine hal joornaal baa soo bixi jiro dawladdu ay lahayd oo xukunka siyaad barre laftiisu aasaasay xiddigta Oktoobar baa la oran jiray waxay dawladdu doonayso baa lagu qori jiray halka bogga ugu horeeya subax walba waxaad ku arkaysaa tusaalooyinka madaxweynaha oo marka qaarkood dadku ma garanaysa bal qof kan lagu yiri inuu fiirso leeyahay subax walba halka joornaalka waxaad ku soo qortaa tusaalooyinka madaxweynaha xagee u doonanaya khudbadihiisu wuxuu ka soo gorgoracay wuxuu ku dhibaatooda markii dambe way iska sahlanaatayo hadalkii wanaagsan ee aad meel ku aragtaba ku saxeexun isaga hatta waxaan xusuustaa oo ay idin qosli doontaan subaxay ku soo baxday xiddigta Oktoobar tusaalooyinkii madaxweynaha kii carabiga ahaaba waxa ku qoraa al-aqlu saliim fil jismi saliim waxa laga yaabaa in badan oo idin ka mid garan maysan qorahdaas meesha ka timid waa Giriigii hore
Griigii hore ayaa odhan jiray ciyaaran Olympic iyo meesha laga keenay way had iyo jeer Griigii hore xadaaradooda waxa ka mid ahaa inay qofka jirkiisa iyo xagga sportiga markaa lagu dhiiri gelin jiray dadna calaamada sportiga had iyo jeer la socota ayay noqotay iska qoray waxa weeye waa maraysaa cidina oran mayso mar haddii madaxweyne lagu amaanay wixii lagu amaanayaa amaanayba meel kasta laga keenay waa okay sidan bay haydo marka taas waxa weeye waa faafreeb halka yaalo isagu waa macruuf haddaba waa faafreebka xukunkaasi inta wuu ka badnaa aad buu ka badnaa hay'adda qabanaysana ma ahayn guddiga faafreebka oo keliya ma ahayn ama iyadu intaan idiin sheegayba umay dhaafay joornaal dabadda ka yimi bay eegaysaa wixii la noqoto ma garanaysaa aanay soconin bay ka goysaa joornaalkii suuqa lagu iibinayaa isagoo intii ka go'an tahay ogow filimkii waa la gelayaa isagoo wixii laga googooyey riwaayaddii waxaa laga yaabaa riwaayadaha qaarkood waliba dadka ay dowladdu markaa u haysata kacaandiid inay yihiin riwaayadda gebigeeda waa la joojinayaa riwaayado badan waa maqasheen oo la joojiyey aqoon iyo afgarad iyo hadraawis riwaayaddii hadima la odhan jiray riwaayadaha nooca ahaa waa la joojiyey gebigoodiiba qaarna waxa laga yaabaa in la yidhaahdo heestaa ha laga saaro ama muxuu ahaaye weedhacaynkaas halka ha laga saaro ama geeraarka halkaas hebel odhanaya ha laga saaro laga yaabe badiba se dadkani iyagaaba isfaaf reebayadoo xaaladda jirtay waxaa dhacaysay qofku hadduu doonayo inuu publica wax soo hordhigo inuu iska fikiro maxaa kaa soconaya leanna waa la isku xidhayaa in la wixiye oo qofku isagu intuu isfaaf reebo badanaaba dad badani waxay samayn jireen riwaayado taliska u durbaantumaya oo ammaanayo oo wadaniyadda iyo guulihii kacaanku keenay iyo markii ciidamadii dowladihii hore la haaraamo dowladihii ka horreeyay kacaanka siyaad barre la haaraamo iyo siyaad barre iyo kacaankeedii iyo 22 Oktoobar oo la weyneeyay iyo kuwaasa iska badnaa dowladduna waxay lahayd sideedaba warfaafinteeda gaarka bay lahayd ee had iyo jeer ammaanta madaxweynaha aad ugu badan tahay kacaanka ammaantiisu aad ugu badan tahay taasi waxay ahayd waxyaabaha idaacadda iyo tiyaatarka iyo meel walba hafinaya ee dadka saacad walba soo gaaraya bay ahayd waxaa jirtay faafreebka dhabta ah ee dowladdu ay aad u ictimaadi jirtay ugu tiirsan jirtay waxuu ahaa nabad sugidda hay'adda nabad sugidda oo markii dambe iyaduna badatay oo kuwa kalaa kasoo hoos baxayo iyana la asaasayo waxaa la yidhahdaa hengisiyo hergisiyo ayaanan hadda waxba ka xusuusnayn iyo muxuuha dhabarjabin iyo waxbaa soo baxay wuxuuna waxa weeye giddigood maxay iyagu samaynayaan markan waxaa la aadi maayo riwaayad soo baxday iyo gabay la tiriyey la aadi maayo joornaal maxaa lagu qoray waxaa la aadayaa qofka laftiisa qof walba waa la dhegaysanaya dhegaysi basaas wax dhegaysanaya oo meel walba joogta meeshii dhowr qof isugu yimaadaanba uu joogaa uu dhegaysanaya halkaasuu warka ka qaadaya hebel baxaya xasuulaha dabadeedna waa markay badanayso xadhigga waxa la yidhaha hadal oo la isku xidhayo hadal buur waa la isxidhaya bini aadan baynu nahay oo dadku wuu hadlaya laakiin aamusku wuu batay waa run ha batay ee laakiin haddana waxaa jira oo idinba iska garan kartaan 2 qof 3 qof 4 qof oo iyagu ku wada dhaqma afkeenu way su ammaan Soomaalida tiraahda afkeenu way su ammaan dadka afkoodu intii afkoodu isu ammaan yahay ayaa sheekaysanaya dabcan halkaa fadhiyo oo dhabarka u soo jeedi markaa hebay fadhiyaan ama meel bay marayaan ama bas bay la socdaan ama meel baa bay wada taageen everywhere hadal buu dhexdooda ka helaya waa qaadaya waxa kaloo soo baxday qofka kan la soo diray la yidhi warkeen lagu jiri waa inuu wargeeyaa ciddii loo diray badibana cid baa markaasoo kaleeto calaamadsanaanayso calaamadii fuulaysa dadka nooc gaara aqoon-yahanka culimada muxuu ahaayey nin lagu yaqiinay hadiyo jeer inuu hadlo oo ama saamayn dadka ku leeyahay wax kasta ha ahaatee ama gabadh ama nin saamayn dadka ku leh ayaa loo dhayaa hebel ha la dhegaysto hebelkaasi waxa weeye waa inuu 2 mid soo galaa inuu durbaanka tumo oo madaxweynaha ammaano oo meelaha jooga oo dhan muxuu ahaayey santarada iyo meelaha ka hadlo orientation centerska hadiyo jeer laga helo oo microfonka qabsado haddii kaa laga waayo si caadi isaga noolaado waa la dhegaysanayaa si gaaraba markaa loo dabagelayaa kii loo dirayo
wuxuu doonaya inuu wargeeyo hadduu qofkaa warka geeyo muxuu samaynayo isagaaba hadduu doono alifaya ilan meeshii ma jiro cid qofkan kunturaysaa ma jira isaga warkeenun baa la yidhi eedna isagu shilinkiisa suu bislaysto ama ma garanaysaa kaarirkiisa shaqadiisa suu ilaashado hadduu doono been buu ka geynaya xaaladda ayaa abuuraysaa in layska dad badan inay been abuur waxaan la daba socdaa waa maxay qof walba maskaxdiisa maxaa ku jira waa in la helaa wax oo dhanna maxaa keenaya waxaad is weydiisaa waxaa jirtay anigu siyaad barre dhowr jeer baan la kulmay kuwan madaxda nabad sugdahaana marar baanu kulannay waxa iiga baxay waxa weeye hal waxbaa maskaxdoodu ay ku fokas garaysan tahay hal waxbay maskaxdooda abbaaraysaa mar walba haddii kale may shaqayn kareen waa inay yidhaahdaan muxuu yahay hadafkaynu u shaqaynaynaa muxuu yahay maxaynu raadinaynaa waxa la raadinaya waxa la yidhahda kacaandiid ereyga kacaandiid khudbadaha siyaad barre oo dhan buu ku jiraa orientation sartaraduu ku jiraa kacaandiidkan uu sumadu leeyahay ma jire ilaa haddii la odhan lahaa masalan waa dabaqad bulsheed waxaa la odhan lahaa dee dadkii ma garanaysaa socially noocaasa ama dhaqaalaha caynkaasa leh ama danahoodu sidaa iyo sidaa yihiin ee bulshada ka mid ah ee markaa kacanka ka dhex arkaya inuu danahoodii wax yeelayo ayaa la odhan kari lahaa waa kolley kuwaas mala kacaandiid bay noqonayaan dad sidaa u fikiraya way jireen laakiin lagama hoos qaadaynin nihaayadeedu wuxun bay noqotay kacaandiid waxa weeye kursiga yaa ku soo socda caawa ee looga baqaa halkanun bay ku soo ururtay kursigana yaa ku fadhiya maxamed siyaad barre nihaayadeedu haddana way sii shuuqday oo waxay noqotay siyaad barre weeye cid alla ciddii siyaad barre kullidii ah ee kursigaa uu ku fadhiya qordinaysa ama diidan ama u janjeedha inay cid diidan taageerto ayaa kacandiida marka qof walba halkeebuu makaasaa mise waa kan kii aan markaa had iyo jeer joogin orientation centerka ee aan hadlaynin ee aan heesaha qaadaynin ee aan heesaha alifaynin ee aan durbaankaa tumayniniba waxa weeye waa mashruuc u ban yaalla in la dabagalo in la dhegaysto in war laga geeyo dad fara badan baa sidaas xabsiga ku galay maxaa lagu haystaa waa hadal karo muxuu yahay lama yaqaan xukunkiisuna muxuu yahay iyahay baa la yidhahdaa xabsigii siyaad barraan galay dadkaasaan ka mid noqday niman waaweynoo magacle baan kula kulmay nin la odhan jiray aanu malayno magaciisu aha nin weyn ahaa magaclahaa gobolladan bariga ka soo jeeday ayaa ku jiray maxamed nuur baa la odhan jiray qonof nin caana buu ahaa looyar buu ahaa meeshii xabsigii baanu isugu nimiyo markaasaanu iska sheekaysanado iyada lafteedu meeshaanu ku jiray waa sheeko kale sheeko gooniyaho dadka ku jira iyo noocyadooda iyo siday meeshu xiriir ugu tahay iyo society laftiisu halkaa ka abuurmay oo si gaara wada dhaqmay oo isu habeeyeen meesha gudaheeda lafteeda waa sheeko mawduuc aad u muhiima laakiin hadda uma fadhinee waxaan maxaa lagu soo xiray saasuu ii eeg markaasuu uri adigu ma garanaysa wax lagu soo xiray markaasaan anigu isku noqda markaasaan dhihi wallaahi ma garanaya de anigu kolleyba ninaan weliba isnaqaano oo maalini wareystay maalinta laiga yeedhay halkii kaasima bolaare station briski aan ku xidhnaa la iiga yeedhay ila hadlay sidaa iyo sidaasaad lahayd baad ayaa la yiri buu igu yiri soo hadalunma waxa lagu waad lahayd aniga intaana layguma odhan bur habeenun baa la yimi gurigaygii baa inta la soo garaacay baa deetana fikir faatir loo rogayo la baarayo halkan la kala rogayo waraaqaygii wax dhan la daadiyo waa laysoo kaxeeyo way kan halkan ku jira kii aad weydiisaaba waa sidaa leanno nin qofu ma intuu dhegaystay ama hadduu doono aan dhegaysanba ayuunbaa hadal ka geeyey waxoo dhamina waxa weeye maskaxda dadka waa in qof walba waxa madaxiisa ku jira la ogaado faafreebka ugu darani kan buu ahaa horta siyaad barre waqtigiisa haddaad doonaysaan hadalka intaan la qorin meel lagu faafiya afka ka soo baxay baa la faafreebay marka waxaa dhacay waa la isdhegaysanayaa dhigtaa lagu dhigayaa waa la dabagelayaa qofka farsamooyin fara badanoo dabagalkaasaan xusuustaado markii dambe anu annaga laftageedu qolkaygii la dabageli jiray aanu farsamo u hadlay qof baa ku daba socdo sidaad ku ogaanaysa in lagu daba socdo gaari baad wadataa
سواد لوينس هذا لوينس سيدا سocto muldub markuu dhaho isrogo xageed ka tii uu noqo dadka eeg markaa qofkii soo noqda ayaa ku saba socday markaa garatay mar hadaad ogaato inuu ku daba socday isna uu ogaado inaad ogaatay uu ka haraya mid kala markaa uu hadda telefoon buu la xidhay xunay ninkii uu ogaaday cid kale keen haddaad gaari wadato waad sidaad u socoto gaari weyn u dhaafo deetana dhinaca intaad u leexato luuq ka gal ama marka ishaarada la istaago farsamooyinkan u develop garanay ka mid tahay marka ishaarada gaarigu ku qabto leerka casi ku qabto gabadhoo dhamida way istaagaysaa adigu ha istaagina goy ka gooya laakiin ku daba socday waxyaaba saas halkan waxaa ku dheeraanayna almuhiim horta mushkiladu tan bay ahayd waxaan idinku soo ururinayaa waxa weeye waxyaabahan anigu soo sheegay aan anigu arkay baan ka hadlayaa waxay lahayd runtii waxyaaba qaarkood oo qosol leh ama aan idhaahdo marmarka qaarkood qosol gariir leh habka caynkan ah ee qofka maskaxdiisa la faaf reebayo maskaxdiisa maxaa ku jira la raadinayo wixii ka soo baxana la leeyahay waxa lagu xidhay uu faafini ama waa ka caandiida ha lagu ogaado wax badan baa ka soo baxay waxa la dirayaa cid walba nooc kasta waa la dirsanaya dadna dadkan la dirsaday waa dad wax walba ku kici kara stationka muqdisho ee kaasba ballaar la yidhahda ayaan ku xidhnaa maalin walba dad baa la keenaa badankoodu waa dumar muxuu ahay xaafadaayo inta isku yara buuqbuuqeen iyo talinta habeenkaa la yarahaya ama markiiba la iska sii daynaya u badan yihiin kuwa badani waa tuug group baan anagu ahayn gooriyahoo dadka ii hayda ahoo stationku si yar muxtarama noogula dhaqmi jirayo hanuguba cidhiidhi ahaadee qol baanu ku jiraayo gogashaydu noo taalloo naloogu yimaada cuntada naloogu keenayo waa iska fiican inan yaro 13 jira baa la keenay halkan u socda waa tani sidaamaad ku aan doonayay inaan tuso waxaan marka dambe inuu caleeg iyo wax saqataanimo inuu noqonayo marka waxad dhaafo xadkiisa markuu dhaafo faafreebkani inantii yaray maxaa lagu soo qabtay inantaa yare anuunbaa raggaa kale sidaaba uma eegaane anuunbaa intaan ka naxay adeer waa lagu sii daynay markaasi markii dambe anigii intay miini mooday subax walba rashiida adeer miyaan lay sii daynay markaasaan ku adeer waa lagu sii daynaya maraan qalbiga ugu ridaa inanta maxaa lagu soo xidhay ilmo yaroo iskuul ku jira waad garan kartaa buugga u haysto buug wal oo iskuulada lagu dhigana sawirka maxamed siyaad bare ayaa ku yaal qalin beesal iyo waxyaaba maganaysa ama khad waxbaa wejigii ku daatay iskuul iyo meel walba way joogaane mid baa shaqo ka dhigto kacaan diidkii waa 13 jir inantii yareed saasaa lagu soo xiray buuggeedii ayaa sawirkii madaxweynaha khadad iyo wax ku bixeen waa intaasoo keliya anoo yaaban oo marna cadhooda mar ayaa subaxa halkaa daaradday kulada boliisku i yar saari jireen oo subaxiyo dhabar xanuun iyo kulbaari habaan lahaayo markaasi cadceedda halkaa fadhiiso meeshu dayrku waa soo xidhan yahay subax jimce ayaa waxaa soo galay nin aanu saaxiib ahaynoo gobolka banaadir boliiska ka madax ahaa maxamed cabdilaahi baa la odhan jiray ninkii meeli jiro hadda garanmaya ma nool yahay reer gafkooyuu ahaa nin wanaagsan buu ahaa maskax badan ayaa soo galay si macaan buu ii salaamay waanu isa salaanay markaasaan ku uri waryahe inan yaro 13 jira wax aynkaasa lagu soo xidhay halka ku jirta inantaa meeshii ka sii daa u dhaqaaqo inantii markiiba meeshii ka sii daay taasi waa waxyaabaha caleegaa sheegaya ka mid ahay nin baa nin wuxuu ku yidhi sharad waxaa qalbigaaga ku jiraan garanayaa oo isdhan la keenay station sharad iyo sharad 20 shilin iyo 20 shilin waxbaa la dhigtay sharad haddaad sheegto waxaa qalbigaaga ku jira kiina xariif wuxuu waan garanaya waxa madaxaaga ku jira maxay ku jira maxamed siyaad basaad jeceshay kiinaytu lacagtiisi qaad kula naga tag waxaad naga sanad waxaad wala ibraysatay nag halkan oo dhageysanayna ahmed madaxweyne iyo kintoona ma jeclina naga tag buur ila warkayga inuu qiyaamo doonaya lacag kaga qaadee wuxuu kale odhan la ala keenay waxa kale
waxaan doonaya wax kale ii sheegi maa weydka qoslinayaa nin baa jiray magaalada muqdisho joogo dadka kan la moodo inuu waalan yahay laakiin haddana muu dhammayn in dheer oo madow oo xoog badan oo laakiin aad moodo meel bay beri bay malaa dagaaladii nabar baa ku dhacay lugto wuu dhitiyaa magaalada bartankeedu antii oo dhan joogaa waa nin la yaqaano kolleyba cidun baa caawisa galabtii xaggaa iyo dhinacaa shibs ama kaaran wuu carraabaa waxaan xusuustaa isagoo galab walba markuu halkaa ka carraabayo wuxuu idhahdaa allow naga soo gaadh nin cajiiba buu ahaa habeen baan waxaan xusuustaa baarfiyaad meel laydhaa annagoo fadhina ayuu isagu siduu naga soo gaadha wahayey buu soo yimi baarkii yimiyo laba inanoo dhalinyaro halkaa iska fadhiya buu la fadhiistay oo maalintan ninka ka yaabay bay ahayd inamadii laba ninoo dhalinyaraa weeye sheeku isaga bilaabay aana iyagu u dirsan sheekadii nebi yuusuf calayhi salaam ayuu dabiya daal siday ahayd isagoo weliba khushuuci ka muuqato ayuu ga sheekay waan dhegaystay waxaan idhi ninkani maaha ninkaad moodayso hadalka yaan idinku badin ninkii waxaan ugu imi gaal shire isagoo ku jira maxaa lagu xidhay allow naga soo gaadh baashu markay noqoto yani waxaan marka uu isu noqdo dadka oo dhan maskaxdooda aan ogaado markaa waxay ku kalibsaa inaad qof kastaba dirto cid walba in la diro cid walibana markaa si ay u banaysato waxoogaa ay helayso oo sidii wax qabtay dee ay uga egaato waxa weeye waa in ay war keentaa wax wada sidaasoo midhana qaar baan hadda kala ilowsanahay wax wada oo cajiibahoo wada caynkaasoo midhana baa jiray muhiimku waxa weeye aan ku soo ururinaya waxaan la yidhahdo faafreebka ugu wanaagsan waxa weeye qofka iimaankiisa iyo taqwada qalbigiisa ku jira ayaa xumo oo dhan ka reebaya bini aadam inuu dhigo inuu wax tara mooye inuu bini aadamba dhigo iimaankiisa iyo taqwadaa ka reebaysa kow taasna dad laga wada heli maayo kolleyba ciddii alla u raxmaday taasaa ku filan cabsida uu ilaahiisa ka cabsanayo ayaa ka reebaysaa inuu carabkiisa iyo gacantiisaba waxun ka ilaaliyo inaanu cidnaba dhibin marka ay halkaa ka timaado wixii uu sharci xaaraameeyo ee ciqaab leh hadda u fiirso waxaas waxa weeye waa ficil weeye de waa tuugii iyo kii wax dilayey iyo kii wax dhacayey iyo kii wax kufsanayey waxaasoo dhami waa ficil jariime ah ficilka jariimada ee caynkaasa isagu faafreeb maaha waxa weeye hay-ada amni iyo maxkamado qaabilsanoo qabta qofkii qabto oo dembigiisa ku qaado ciqaabtiisana mariya ayaynu u baahannahay markay noqoto fikirka biniaadamka maskaxda biniaadamka maxaa ku jira laba iyo maal la qaatay ha la hadlo oo marka la hadlo xuma iyo samaba way soo baxayaan qof hadal aan xaq ahayno hagaagsanay afkiisa ka soo baxana waa la heli kii wixii hagaagsanaa ka soo baxeenna waa la heli haddaba waxaan hagaagsan laftiisa ayaa xukumaya talo waxaas ma hagaagsanya mise ma hagaagsanaa qof suldad joogaa isagu tuu nacab yahayba waa waxun buu odhan qofkii baawar gacantiisa ugu jiraa haddii aanay hay-ad celisaa isaga laftiisa jirin oo la xisaabtantaa jirin oo celinaysaa de wixii isaga uu isleeyahay aanu jeclayn oo dhan ba wuxuu odhan doona waa xaarana hala qabto runtiiba markaa lafteedii ayaa la faafreebaya runta lafteedii baa la faafreebaya waxaa ka wanaagsan iyada oo ay runtu beenta shaarica kaga adkaato oo qofkan beenta sheegay kii runta hayu yidhahda war ma jirtay caynka weeyad sidan maahe waa sidan markay labadu sidaa u beratamaan runtaa dheeraynaysaa beentu lu keliyay leedahay baa la yidhahdaado lugta marka la qabto ayay dhacdaa markaa faafreebkani haddii uu noqdo yaan dowladda waxba laga sheegin
dowladda ayaan waxba laga sheegin waxa weeye khasaaruu leeyahay dowladda haddii wax qalada laga sheego ciddii ka sheegtay qalad waxaase de hadduu jariimo keenayo oo masala hadduu qofku idhahdo dadka ku kacayo intuu dad abaabulo idhahdo lagu kaco dowladda waa ficil dembiya taasi oo taasi maaha hadal maaha waxa weeye de waa ficil laakiin marka ay tahay war anigu qalad baa halkaa iiga muuqda waxa weeye waa inuu taasi waa inay bannaan tahay oo aan la faafreebin saxaafaddu waa inay xor tahay qofku ra'yigiisa waa inuu isagoo xor sheegaa waa inuu gudbiyaa waa inuu dadka kale u gudbiyaa waa inuu hay'adaha dowladda u gudbiyaa maslaxaduna saasay ku jirtaa wixii markaa waa la saxayaa wixii inaga qaldan baa saas lagu saxayaa faafreebkase haddii la yidhaahdo mada wixii la doonaya mooye wixii kaleto waa la goynayaa ama lama qori karo ama la odhan karo war wax qaldan baan qorayaaye halay saxo oo wixii saxaha layga daba qoro ayaan leeyahay haddaan wax qaldan qoro amaan sheegoon idhaahdo muxuu ahay ama idaacad ka sii daayo wax qaldan haddaan sheego ha la isaxo oo wixii saxa ahaa tayda ha laga daba keeno markaa dhibaato markaa iman mayse haddii kaleeteen faafureebkan idhaahdo had dhaafino waxaan sheegayaa dhacaya xataa waxyaabaha saqajaanka ee heldii khariban baa imanaya waayo qof baad diraysaa wax loo xiiba aanu jirin oo wuxuu kala garanayaa jirin ama iska danaysta oo hungurigiisa u shaqaysanaya waan dhameeyey aad iyo aad baad u mahadsan tahay rashiid sheekh cabdilaahi rashiid garweyne maasha allah waktigii 30 mirir ee hore si waxaad u fadhiisisay xog cajiiba oo aad iyo aad u qiimo badan oo isku xidhaysa wixii hore dhacay iyo waxa taagan iyo talooyinba intaba wad raacisay runtiina waxaan jecelahay inay dadku waayo badan kala bixi doonaan iyo casharo badan oo nololeed adiguna aad noqotay dhibana soo maray waxaad ka hadlaysay 2-3 su'aalood baan jecelahay inaan ku weydiiyo wixii ka dambeeyana dadkaan u furi doonaa maxamed xirsiina insha Allah tacaala hadduu wax ku darayna waan ku soo dhaweyn doonaa laakiin su'aasha koowaad waxa weeyaan waad ka sheekaysaysaa dadka loo caaburinayay iska daa wax la qoro iyo wax la yiri in caqliga dadka lagu socday ma garanaysaa in caqliga qof wuxuu ku fikiraya xitaa in loo sii dhaafo qofka caqligiisa marka faafreebka la adeegsanayay ee dadka sida loogu dhameeyay miyuu lahaa xeer qoran oo la raacayo maya waxa weeye hadduu xeer jiro de waxa weeye xeer odhanaya muxuu ahaa anigu horta ma garanayo faafreebkaa ay hay-addaasi ku shaqayn jirtay xeeru lahaa garan maayo laakiin kolleyba hay-addu lafteedu waxaan filayaa habbay raacaysay waxay lahayd kolleyba ahdaaf bay lahayd u qoran ujeedooyin bay lahayd waxaanad garanaysaa ujeedooyinkeeda wixii ay qaban jirtay markaan wixii ay qaban jirtay malay maqlaya wixii ay qaban jirtay markaan ku noqdo waxa ii muuqanaysa inay ujeedooyin lahayd qayaxan oo iyadu ay ku shaqayso aanay dhinacnaba uga bixin waayo xuduud bay lahayd waxay qabanaysay jornaal bay soo qaadaysaa dabadduu ka yimi waxa uu yahay anigu wuxuu ahaa garan maayo laakiin kolleyba waxbay goysay waxaas gacaanku ku liddi yahay wax laga yaaba inuu akhlaaqda ku liddi yahay oo qiyamta dadka uu ka soo horjeedo wax kasta ha ahaado laakiin ay ujeeddo leedahay waad arkaysaa maqaalaadka waxaad eegaysaa maqaalaadka ay fasaxday ayaad akhriyaysaa ku garanaysaa marka xeer qoran may lahayn oo la raaco laakiin demaan ka shaqayn jirno gudaheedii kama waqtiyo laakiin wuxuu ujeedayin inay ujeedo shaqaynayso un baan garanayaa oo kuma odhanayo muxuu xeer been xeerna ma laakiin tan dambe iyada maskaxda dadka la raadinaya iyadu waxay ahayd yaa kacaandiida maxaa lagu noqonaya markii dambe kacaandinimadu way fintay kacaandinimadu marka dambe waxay ahayd qofafkii iyo qof walba intay ka tagtay bay waxay noqdeen qabaa'ilka qaarkood reer hebel waa kacaandiid oo iyada laba qarsan jirin marka qof kastoo reer hebelaba waa si gaara loo dagelayaa waa hagaag waxaan jecelahay inaad iyadana igu xidho dadka markii la caaburiyey waxaa jira taba ay la soo baxeen inta nimankii maxay ahaydeen bahdii suugaanta ama nimankii maasooyinka culinayay in heesa badan oo jacayla oo haddana kacaandiid ay sameeyeen
marka dadkii la caaburiyo toban noocee bay la soo baxeen si iyaga laftoodu aanay moogtay aanay tallaabada u gabin horta waxa weeye yaa la hadlin wax suuragalab maaha yaa waa la hadlayaa waataan hadda idin lahaa muxuu ahaa masalan waxaan xusuustaa tiyaatarka xaflada lagu qabtaa tusaalan ka dhigayaa tusaale tiyaatarka xaflada lagu qabtaa markaas waa la yimaadaa siyaad baraa ka khudbeeya marka khudbadiisaasi haddii jeer lagu iskaaftahmo dheer oo kacaanka iyo muxuu u dhashay iyo guulaha kacaanka iyo kacaandiidka iyo tabahooda kacaandiidka iyo nuxnuxda iyo caynkaa iyo kacaanku birbu wax kaga qabanaya soo soco wuu dhammaystaa intaa uu khudbaynayo mar walba saxaabka markaasaa qaar dadkiisa ka dhex jiro oo way kacayaan markaas guul wada siyaad bay qaadayaan oo waa la wada kacaya waa la wada qaadaya oo dadka meesha jooga way dhammaatay laga dareeray meeshii hata lahaa muxuu ahay labadii afkoodii isu ammaan yahaybe halkaa marka laga dhaqaaqo wuxuu nagula hadlay ma maqlaysi kaani kugu dhacday halkaas marka way hadlayaan dadku waxa weeye waa hadal dadku intii is aaminsanayba ay isku qarsanayso dareenkii guud qofka dadka wacyi geliyo oo dareenkiisa muujiyo taabusa waan u soo socdaa ta kale waxa weeye tan aad sheegayso ee maaragtay dadka masalan suugaanleyda masalan siinley baa jirtay deeley baa jirtay deeley markii dambe feebreebkii intay ka tagtay waa tii layidhi hala joojiyo xataa waa tii lagu hanjabay raggii ma garanaysaa deeleyda qaar ka mid ahaa in la laayo deeley siyaad barre wuu aqbalay inay soo baxdo markii bilowgeedii waxay ku bilaabatay gariya hadraawi iyo yamyam iyo adigu dad kooban oo yidhi warmaynu nimankan muxuu ahaaye qabiyadan qabyaaladda ee dibadda ka imanaya ma laga jawaabi karaa maxamed aadan sheekhaan kilo idiin sheegayo nin wanaagsan ahaa isna dhinaciisuu ka gurmado xuli waa in wax laga hortagaa okay waanu isu nimi haddaba xertayadii yarayda koobnayd aniga iyo gaariya hadraawi iyo baarax gabuute iyo majmuucadii hore aanu ahayn waxaanu waryaanay dhegaysta waxaad doonaysa inaa gabaydaan oo qabiil ka hortagtaan waa hagaag qabiilka maanta laga hadli karaa waa kuma sidanay fikraddu u dhibal goroobaysaa hadiya jaa nimankaa dabadda ka soo gabiye nin baa jiray muhiim ahoo jabhaddii SSDF oo markaa asaasantay gabayaa ku jiray ahaa dadkuu guubaabinayey oo lahaa siyaad barre ku kaca cajaladu leeya baa suuqa soo gashay taasaa markaa xogaafay dowladdana ka xanaajiso laga hortago gabayaa lagaga hortago ninkii mar haddaan la xidhi karayn aanu dalka joogin ninkii wuxuu u gabiyey qaab ah uu dadka iyagoo qabaa'ila qolo walba intuu qabiil ahaan magac reer hebel ahaan ula hadla leeyahay ka kacan meesha reer hebelow nimanbaa intay reer hebelowdoodii lagu yiri ka xanaaqeen baan iyaguna si reer hebelnimo ah ninka qoladiisii u weerareen ka soo guur annaga waxaanu nidhi war waxaasoo dhan dhinac inaga dhiga qabiilka dhab ahaan jira ee maanta laga hadli karaa makii reer hebel baa mise wax kalaa jira waxaanu aragnay in wax kala jiraan qabiilka maanta laga hadli karaa waa ka dowladda ku jira maamulka ku jira ee musuqmaasuqa iyo laaluushka iyo dadka kan xaaraan ku dharagga ahaynu arkayna abuuray ee baawarkan siyaadada ee dadka qaarkood ay gaar u leeyihiin arkay ee aanay suldadii dowladda dadku sineen cadaaladina aanay jirin kan weeka ay tahay laga hadlo tiibay markaa gaariyo hadraawi bilaabeen tabtiibay deedna intay burqatay bay deelay fara badan wadadaa qaaday deedna markaasuu taliskii xanaaqay hala joojiyaa la yidhi isagoo weliba ku hanjabay si kale ku joogsan maysa waa in dad laalaayaa sidii wadaadadii ay weli muxuu marka kuwa lalaayo ay kuwa ka wadaadada kale cid kale ku dhiiran doonta inay la hadaashaa ma jirtay annihaaya waxaan uga socdaa waxa weeye deelay si rasmi ah inta tiyaatarka xaflada lagu qabtay riwaayataasoo maasha allah deelaydi way joogsatay waana joojinay laakiin miyay joogsatay halkan u socda waa halkani sanad iyo 2 sannadood oo dambay socotay
oo ay waddanka gudihiisa iyo dabadiisaba ka imanaysay oo markan la leeyahay la xabladeynaya hal la joojiya lalahaa ayaa laga yaabaa mid tuulo hiblaayo joogaa oo faynuus haystaa inuu warqad iyo qalin ama maskaxdiisaba ku ururinayay deeley uu ka dabageeyo kuwa cajaladiina waxayd waagaas cala fikra koorka maastarada la odhan jiray cajalada kaasaa isaguna xoog u dhabar jabiyey muxuu ahaa habkan taliskuu ku shaqaynayay ee ahaa caburinta iyo yaan wuxuu dowladdu doonaysa ma yaan wax kale la odhanin way jabisay gidaarkaas waxaa jabisay cajaladaasaa suuqa qabsatay warfaafintii dowladda iyo reeryogeediiba wixii laga dhegaysanayayba inta lagaga leexday ayaa heestaa cajalada ku duuban iyo tixdaa cajalada ku duubanba aad iyo aad iyo aad u noqotay daad taasaana ahayd wax ka xor ah wax ka xora muxuu ahay faafreebkii oo aan idina taasaa fashilisay aad iyo aad wad mahadsan tahay halkan weli ka wada soconnaa waa maaxda aqoonta iyo kulankii labaad ee ku saabsanaa faafreeb ise bilaa faafreeb ama faafreeb la'aan waxaa marti ku ah rashiid sheekh cabdilaahi rashiid garweyne oo runtii wax badan uga soo joogay waayihii qadhaadhaa ee dowladdii kacaanku ay isticmaali jirtay faafreebka xoog badanna inala wadaagay iyo dhibaatooyin badan oo xilligaa dhacay iyo sidii qaldanayd ee loogu talax tegay faafreebka waxaan iminkan u gudbi doonaa insha allahu tacaala dhinaca kasoo qaybgalayaasha gacmo badan baa taagan laakiin intaanan gacmaha u tegin waxaan jecelahay inaan maxamed xirsi guulaadan idhaahdo maxaad ku kabaysaa soo dhowow aad iyo aad baad mahadsantahay cabdishakuur sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa rashiid sheekh cabdilaahi oo inaga ajiibay kulankan qiimaha badan inuu naga qayb galo isla markaana inooga sheekeeyey qisooyinkii iyo wixii uu soo joogay wax ka mid qisooyinkana waxaa looga sheekeeyaa si loogu cibaaro qaato taqsusil qasas yani qisooyinka ka sheekee baa ilahay qur-aanka ku yiri si aad dadku ay ugu wax qaataan oo aanay waddadii oo kale u qaadin dabcan waddadii xumayd da wanaagsaneedna iyadii u qaadaan marka jazaaka allahu khayr baan leeyahay waxaan doonayaa in dadka runtii la siiya qayb libaxle oo lasoo fasaxo su-aalahooda iyo faallooyinkooda insha allah waa hagaag aad iyo aad bad mahadsan tahay maxamed xirsi inkastoo jeclaa inaad xoogaa adiguna ku kabto waxaan ku horreysiinayaa gacanta ugu horreysa taagay gacanta gaarin midhaan ilaabay oo walaa waxyaabaha talaxtaga ah oo aan tii aan iigu darayda aan idiin sheego oo kaga hadhe subaxbaa waxaa noogu yimi meeshaan ka shaqayn jiray axmed salebaan dabde nolol baan ku ogaaye sheekuu nooga sheekeeyey wuxuu ka sheekeeyey isagaa markaa wuxuu lahaa inuu lecture naga siiyo howlaha hay-addii markaa ka madaxda ahaa nabad sugiddaha deedna qaladaad dhaca buu nooga sheekeynayay wuxuu si fiican runtii markaa mid ka mid ahayd oo cajiib ahayd waxay ahayd islaam baa wuxuu yiri ka timi xaggaa iyo waqooyigay ka timi dabadeedna koleba ehel iyo qaraabay u timi deedna markay noqonaysay bay doontay gaari aqooni ah inay muqdisho ka raacdo oo deegeeya meeshay ku socotay deedna ceelgaabtay timo baabuurta waqooyiga qabanaysa ay ka bixi jirtay wuxuu islaantii waxay tiri dadkii bay weydiiso waxay tiri dadkii meesha joogay hooyo gaarigii inamada guuyoobe talow mee gaarigaasaa raaci lahay dhagaystihii qaayaa lahaa dhab buu siiyey islaamtii markaasuu boliiskiina ugu yimi islaamtii baa markaa lasoo yongeeyey islaantii way yaabtay wuxuu yidhi islaantii isagaa nooga sheekeyn hadalkaas waa hadalladiisi islaantii waxay tidhi intay yaabtay bay magaca guuyoobe waxay u qaadatay balaa inuu meeshan magac xuno aan lagu dhawaaqi karno afka laga dhowra yahay markaasay tidhi hooya ereyga guuyoobe halkan macaybaa maxaa tiri bay ma yidhaahdeen buuri maxaa tiri ku yidhaahdeen markaasay tiri dee ereyga guuyoobe markay tiri yidhi markaasay tiri hooyo ereyga guuyoobe halkan macaybaa axmed salaaban dable wuxuu nagu yidhi markuu halkaa maryaba wuxuu yidhi ilaah baan idinku dhaariyay islaantaasi maxay dambiyeen leedahay hadalkaasaa madaxayga dheg ku jiri waxaan idhi bal waa golihii sarii kacaanka hadday ciduur xataa maxamed siyaad barre cid wuxuu sheegayso kii ugu dhawaaye u sheegi lahaana waa isaga
وأركيادو سيدا هذا الكاو يلو حوي إنه هذا إنه وحنا يلاحظوا مو هاي إيه جرين قبيلة يدي إيه جرف كم مركز لك كذا وقدم بيجان نقول إنه قلدي هاي وكانوا إسلام تاسوح ليه محيدا بالله هاي أدي وحنا سميني سنة إساءة كمدها حتى أنا واكل سجي بابا يابن خيف وأنا أقول ديكتاتورشيب كهيرك وجالسين زي السياد بري يكون السنة هذه أضم حسن توقع سعد يدعو عشيبة وحنشعلها هاي يوسف بقى عنده وجوه ريستها جاي يوسف سودو تتفضل بقى على قيد جلي وقت جانا إن شاء الله تعالى أما فعله أما السؤال سودو إن شاء الله مع سند عبد الشكور وحناد وقوم مهد نقيا رشيد شيخ عبد الله waxaan kaliya aan doonayay laba eray midna inaan su'aal ka dhigo midna inay tahay bal inaan aniguna in yaro rashiid mustawihii u taagnaa malaha de annaga inteena sayid axmed u baxaga u dhadhaway mustawihii u taagnaa buu isagu nooga warramay oo suugaan iyo dad la xidhxidhayay waxaan aniguna u soo taagnaa warqado la ii dhiibay oo laygu yiri boostada gee iyo cijalad wada socday in laygu yiri meel ku taalay xagga iyo badda agteeda in laygu meesha lagu soo dhageystay xagga gee oo hal soo shaabadeeyo horta intaas waa dad isjecel warqadahood baa halka lagu soo dhageysanaya inta rashiid baan ugu darayaa waxa kale ee aan doonayo un ereygan sansuur ama jansuura waxa weeyaan wax de ka horeeyay waayo reer galbeedku hore u yaqaaneen xilligii malaha xamar loo dagaalamayay ama de gobolada koonfureed loo dagaalamayay xorriyadda iyo waxa lagu yiri aamus ninkii la oran jiray ninkii gabayaaga ahaa cali xuseen marka cali xuseen de waxa la yiri kama gabi kartid arrin ka soo horjeeda nimanka Talyaaniga waxna ma sheegi kartid marka gabaygiisii wuxuu u bedelay waraabe iyo geeliisii oo uu leeyahay waraabahaasoo kulay intaana waad ila haysataan intaasaan doonayay inaan ku daro waxa kaliya unan tan su'aashan ka dhigayo oran lahaa bal intii ka horeysay kacaanka hadday tahay aflaam dibadda inooga imanaysa oo laga yaabay inay la socdaan waxaan dhaqankeena iyo diinteena waafaqsanayn miyaanay halkaa yar jirin wax la yiraahdo war inaga hubiya wixii dibadda ka yimaado iyada laftigeedu waa nooc min asansuur laakiin qiyamkii iyo dhaqankii iyo diintii lagu ilaalinayo marka aad baad u mahadsantihiin intaasaan ku joojinaya waa hagaag su'aalaha waan israacinaynaa su'aashaan waynu soo noqon doonaa gacan kale waxa taagaya sayid axmed marka yuu ka noqday sayid kulley waan meel baan joogaa aanan si fiican u hadli karaynay aad baan idin salaamaya aad iyo aad baan idin salaamayaa rashiid sheekh cabdillaahina aad baan u salaamayaa waxaan weydiin lahaa horta halka la jarayo joornaalada la googoynayo runtii indhahaygan ku arkay oo bookshopka Samatres bookshopka xamar ku yaalay waxa la jari jiray macal intii ka dambeysay aan sheekada caadiga laga yaabo war iska normal ah oo ka dambeeya halkan la diiday ayaa dalagu jirtay oo dabada daaqad ba ka dhowr daaqadood ba ka bixi jiray Newsweek Timesta kuwaasan garanaya waan arko toos baan u garanayaa iyagoo jaran su'aasheedu waxa weeyaan wixii ka horeeyay 9-kii joornaalaha soo bixi jiray way jiraan dad sida aan maqlay la qoonsaday qoraallo ay qoreen sida ninkii caanka ahaa ee Ilaahay u naxariistay Urdoox maxamed Urdoox oo aan sidaan maqlayna markii dambana Ilaahay u naxariistay wuxuu ku geeriyooday baa la igu yiri isagoo xidhan ba markii xilligii dawladii dambe ee dawladda ka caanka ahayd laakiin markaa hore joornaalada la soo saari jiray iyaga wax dhibi miyay ka jireen oo faafreeb miyaynan odhanayeen dawladdu ay diidantay ay dadka ku xidhi jirtay miyay jireen waa hagaag aad iyo aad mahadsantahay sayid su'aashaana waayo su'aal kale aynu raacinayna markaa roobla gacanta taagay roobla muuse rooblow soo dhawow roble mikrofoonka furo waxaan malnayaa waxa ka mikrofoonka ka xidhan
عبد الشكور واد السلام يا ولال على الرشيد بانو سلام يا رشيد حاج عبد الله وان كفرح سنهين و aqoontiisii khibradiisna la wadaago waxaan u laaban rabaa qeexidii u horeysay oo faafreebka uu rashiidsiiyay ahayd sida ugu fiican ee wax loo faafreeba waa in personal integrity ama morality qofka la dhiso taasay la tahay hadday raacdo in bulshadana la dhiso oo bulshadu ay yeelato morality fiican iyadaa soo kala reebi doonta marka waxaan doonayaa in rashiid bal inaan ka faa'iideysto weydiiyo iminka intan dambana waa kan samaysmay technology-gu qof kasta Facebook-giisa soo geli karo xitaa haddii faafreeba la israacan waxba la faafreebi karin marka ilbixinta iyo tayeynta bulshada ma tahay iyada tabaha faafreebka casriga ama saxda ah dadka loo faafreebo tii xagga dictatorship ka leegin xagga wanaaga leegayo marka halka bal khibradiisa aan wada ka faa'iideysanayo xiriirka ay leedahay horumarinta bulshada ama ilbixintooda ama aqoomeyntooda marka si loo establish gareeyo social policing meesha ka saara isagu noqdo faafreeb bulshada aad baad u mahadsantahay rooble waxa weeyaan waa weydiin aad u qiimo badan saddexdaa weydiimood ayaan ku celinayaa insha Allah taala Rashiid Cabdirasaaqna ku dar waxay la tahay Cabdishakuurow Cabdirasaaqna ku dar waa intaas waqti weyn haye waa hagaag Cabdirasaaq mala gacantii wuu la noqda soo dhaw Cabdirasaaq Cabdishakuur محمد وما ندوني أنا قلنا هذلي لكن لبا ولا لين كم بدو أنه سيجارن وسوا عسومي إنه قلنا تلا قريب مداخله عم بين يربع كده وباشا عبد الله يقولون بيئيو خضر جامع مركا يجانو ديني أنا وهبين كورن هذلي عوا ما هذلي الرجاس إن شاء الله ليس كتر عبد الشكور وأنكبحي بس هي وهذا برضو ما حصلت هاي وتلفي عن قعنتون هاي تاجان سيان واركو مركا ويدينتو كبدو حد كون يسقال بقوليو سقال لحدنكي أما وحي كعنك كهريي sharaydadii soo bixi jiray dawladdu miyay dhibsan jirtay miyaa dadka la xiri jiray marka wixii xogaad ka hayso soo dhawaada runtii waqtiga dalka waan ka maqnaa wadanka waxaan ka tagay anigoo kuraya baan ka tagay 63kii Qaahiraan tagay halkaasaan sekondariga ilaa jaamacadan ka dhamaysanayo 70kii baan ku soo noqday isagoo si aad bare marka kacankiisa cusub yahay marka horta fi waqtiga waan maqnaa laakiin warkiisa waan hayaa واجانا دي كل ذلك كمان نوض الجنين وركيسة وانهيني مركان ورديدا هين مركان يبينا دتك حقوق الكهية ميشو شوي بان وريستو وحد بهوان وانكدر كي كل بس عن سلاها وركيسة وحجرتي وقتها كل بقى حريات باجرتي صحافة حرة باجرتي ورفافين حرة باجرتي كل بحاجة ورفافين تقرن حربة يحيدو ويجرتي مركا عيدو حلو تشري وحي يراهدان ما قرن ما يجري والله يا بابا مربك الكار كودين لكن حتى يدعو نادر هو نفع به ما هي نورم عادي أو عادي هذا إلا مالي والبدع ما هي وحي هيدو مرمر يدف قف مقرن يساون سوا يقول عضبة لكن صحابة حربة ترتي أو عن عندنا عن رقابة يسنسر شيء حصل ما يوسف اسوينا وحو كويديي oo su'aasha ka tagay weydiintiisa waxay ahaydeen kacaanka ka hor filmaanta ama waxyaabahan iyo wax la bari jiray faafreeba ma wax laga jarama iyada la soo kale wixii 69 ka horeysay wax dabada ka yimaado macnaheedu miyaa wallahi taa kama warhayo waa ka maraa dhulka laakiin koleba eeg waxaan filayaa bal wixii kale ba hasii joogeene waxa muhiimkii waxa weeye dadweynaha ballaaran saameyntiisa ayaa muhiima waxa dadweynaha ballaaran uu diido ayaa had iyo jeeraale qofku isagoon cidiba intaanay dowladda u iman isagoo isfaafreeba filimada masala sidaan filayo dareenka dadweynaha filimada dhulka lagu daawado oo weligood aan xusuusto inay Talyaani ku hadli jireen حتى كو مريكو سمايا ولا سو دبلاج كرين جرا Talyaani waa ku hadlay iman jireen filimada waxa ku jira dadku intii fahamtay af Talyaaniga waa kaleeba mar walba waa in koobanay sawirada filimada ka soo baxaya dooqa dadka ayaa diidi jiray akhlaaqda dadka ayaa diidi jirtay dadkan iimaankooda iyo diintooda ayaa noolayd taasi waxay keenaysaa inay dadku waxyaaba diidaan wixii ay dadku diidaan marka ilooba wala faafreebiyay
waxaana keenaysa barasharka dadka cadaadinta dadka ka imanaysa marka faafireebka caafimaadka qabaana waa kaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay rooble weydiintiisa doorkii horena waad ka hadashay kulankii hore oo waxaad hoosta ka xariiqday in bulshada la dhiso oo bulshadu marka la dhiso qofka magaranaysa ama aqoontiisa kor la dhiso qofku inuu isagu isfaafreebi karo ama wixii xun uu diidi karo wixii dhibaato keeni karana uu ka joogsan karo wixii dhismahana uu ka qayb qaadanayo marka haddana haddii aad 2 iyo 3 ku ladho in bulshada la horumariyo ama xagga ilbaxnimada yani dadkii kor loo qaado la kobciyo iyadana in yar hadad ku ladho sidee uga qayb qaadataa dadku wax la wada leeyahay ilaaliyaan qofku inuu is ilaaliyo inaan magaranaysa dhib badan geysan marka taana in yar insha Allah taala iyada noogu biiri barkeeda horeba waxaynu bulsho ku nahay aynu isweydiino ilayn sida ariga ama xayawaanka isma ag joogno uune eg gorodmadow ari oo muuqa u isaagata oo markaa isag joogta ma nihin waxaynu nahay mujtamac micnihiisu waxa weeye maaha tirada dadahaane tirada xagga dirada maaha waa xagga xiriirka iyo cilaaqaadka iyo isa saamaynta inaga dhaxaysa waa waxa isku keen xidha waa waxa aynu wada aaminsannahay waa waxa aynu isku wada xaq dhowro waa waxa aynu isku wada waajibno taasna waxa la yiraahdaa waa waxyaabo la yiraahdo dowraac waxaasi waa dow iyo waa dow dar soo maqan waa waxa la yiraahdaa qaayasoorada iyo qiyamta waxaynu si u wada qiimayno ama aynu si u wada liidno marka ay taasi naga dhaxaysay qalbi qulubteena ku nooshahay ee aynu isku wada xaq dhowrayno ee ku wada soconayno ee qof waliba ilaalinayo marka waxa weeye uma baahna taasi cid meel kale uga timaade qiyamtaasa ayaa keenaysa inuu suluugeeniyo faldhaqankeeniyo iyo macaamilkeenuba inuu yeesho jid raac inuu yeesho dabadeedna faafreeb kaleba uma baahato laakiin haddana iyada lafteeda waxaa jira kollayba ile mujtamaca inuu waxaa jira mar walba waxaa jira dad xuduudda ka baxa mujtamacu markuu caafimaad qabo dadka xadka ka leexda ee si xun u dhaqma waa tiro kooban haddiise aad aragto mujtamacay dadka badankiisi jidkii xumaa qaadayaan oo aan la is ixtiraamayn oo wixii dadka ka dhexeeya la ixtiraamayn oo qof walba hungurigiisoo qura u socdo oo deedna uu wax walba jiirayo carabkiisa wuxuu ka dhowray gacantiisana laga nabadgelayn hantidii aanay nabadgelayn marka waxay mujtamaci crisis buu ku jiraa markan suldad xoog lahoo dhirbaxda ma ahe waxay u baahanayna mujtamac reform waxaa la yidhahda ma garanaysa islaax ijtimaaci in la sameeyo reform in la sameeyo mujtamaciin dib loo dhiso tarbiyadii lagu noqdo cilaaqaadkii dadka lagu noqdo cadaalad la keeno waliba wax walba wax markaasoo kale ka muhiimsan waa hoggaan isagoo qiyamta wanaagsan u taagan hoggaan wanaagsan hoggaanku hadduu isaga laftiisu hadduu isagu durduriyo laakiin haddii hoggaanka wanaagsan waxa weeye waa ka isagu ay dhaqankiisa iyo maskaxdiisa iyo faldhaqankiisa iyo macaamilkiisaba ka muuqato cadaaladdu ka muuqato dhowrsoonaantu ka muuqato xalaal quudannimadu ka muuqato alla kacabsigu ka muuqdo الله يبارك هذه الضوء ما سنتي dad baa kaa loogu hoggaansamaya waqtigii bayna haya aad iyo aad baad u mahadsan tahay qorshaheenu wuxuu ahaa 1 saac marka saacadii wax yar bay dhaaftay marka maxamed xirsi baan ku celinayaayo oo kabiir inoo ah saacadana hayay marka inaynu de halka ku joojino su'aalaha kala aad baad mahadsan tahay Abdishkurow runtii waa adalka Rashid horta loogu noqonayno حتى مدحضة الضيبة أنا حوق وضغط أنا كو قبسنا هين waxaa loo baahan yahay dad shicibah hor dhisano madax wanaagsan doorto marka haddii aanu dadku dhisnayn madax wanaagsanna ma dooranayaan wax kale waxyaalo kale qiimeynayaan wanaagii wax kuma qiimeynayaan marka waa qodobkaasi waa hadal biyo kama dhibcaana dadka in la dhiso waxyaalaha imaaxda aqoonta u aasaasantii baana ka mid tahay runtii bulshada qof iyo qoys iyo koox iyo loo dhiso iyo bulshada dhammaantiina waan soo dhaweynaa bulshooyinta waqtigii runtii dhowr daqiiqo ee dhaafteen ku talagalay
laakiin walaalkeen cabdirasaaq ayaa wuxuu laba nin oo sax anima waxaan malaynayaa inay rag waaweyn oo badowa waan gacanta taagi karin marka khadar jaamac gacanta taagi kari weyde rodho maxamed badnimada loo noqon maayo laakiin ma jeeda hadda soo dhawow wajigaaguna wuu qarsoon yahay ama kamarada waad iska xidhi kamarada intaad iska xidho codka uun aanu kaawakaa markaa waad mahadsan tahay khadaro waad soo koobaysaa waxbay halkii ugu dambaysaad kusoo beegantay waa mahadsantihiin hadda maad ii jeeda mase codkaygu maad maqlaysaa waan ku maqlaynaa codkaagu maan maqlaynaa kuma aragna kamarada wax kaa saaran yihiin waxbaa saaran kamaradaada marka mushkiladu waa halkaas baa lagu arka khadar soo dhow ku soco marka khadar waan idin salaamaya assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu waa ka xumahay inaan waxa weeye carabta waxa dhahayaa waasil cala alxaasib marka aad baan u salaamaya adeer cabdirashiid sidoo kale waxa weeye xarunta maaxda aqoonta waan salaamaya saaxiibkay sheekh maxamed guuleed dhammaan akhyaarta inta hadda aan isu jeednay iyo inta ay maqlaysa iyagana aad baan u salaamayaa fadhigii hore idinlama joogin marka xaajo nimaan ogeyn baa indhaa ka ridee haddii warkaygu uu noqdo kabatolo halkaasaad ka kudde waxaan rajeynaya in laga dulqaata insha allah 3 qodob oo kooban baan jecelahay inaan kaga daba tago doodan qodobka koowaad waxa way aadna u soo koobaya maadaama waqtigu kooban yahay marka laga hadlayo faafreebku waxa inta badan uu ku saabsan yahay sida adeer cabdirashiidba ka muuqday hadalkiisa waxa way waa hanti maskaxeedka iyo hal abuurnimada amba qoraal ha noqoto amba qowl ha noqoto sida aynu la soconno marka laga hadlayo al-intaaj al-fikri amba hal abuurnimada marka laga hadlayana waxay toos ula xidhiidhaa waxaan loo yaqaano xorriyadda haddii xitaa aynu adeegsano amba aynu aragno luqadaha kale ee afkeena ka baxsan inta badan waxaa la isku sidkaa hal abuurnimada iyo xorriyadda waliha ingiliishka ku hadlaa waxay dhahdaan freedom of speech carabtana waxay dhahdaan xorriyatu tacbiir speechka iyo markaa tacbiirkaba wuxun baa looga jeedaa waa hal abuurnimadii weeye labadiba si aad u jeedaana waxaa lagu xidhay oo xidhiidh ay la leeyihiin waa xorriyadduna waa masalo doodeeda iska leh laakiin waxaan filayaa xeerarka bini aadamkuna ma ogola qofku inuu noqdo xarka goosad iyo awr dabar la'aan dhacay wax aliyaa waa inay jiraan caqliga bini aadamkuna saas buu ina farayaa diinta islaamkuna sidoo kale xorriyadda iyadoo ay asal u tahay haddana way xadaysaa oo qur-aanka intaasoo meeloodba waxaa kaga jira xuduud oo la ilaalinayo sidaa marka haddii la idhaahdo waxaa lagu qasbanaanaya markastaba faafreeb inuu jiro censorshipka in wax la xadeeyo oo aanu dee qofku waxa weeye aanu xuduudda ka tallaabin haddii sidaa loo saleeyo waxaa saluu ka imanayaa oo aniga ay fari iiga taagan tahay cunwaanka doodda oo ah faafreeb mise bilaa faafreeb asalka waxa weeye dooddu waxay ku qurux badnayd faafreebka in la sugo laakiin laga doodo faafreebka aan doonayna waa kee ka aynu diidaynaana waa kee laakiin faafreebka waxaad moodaa in sharciyada bini aadamka iyo dee waxyiguba ay isu kaalmaysanayaan bini aadamka in la xadeeyo oo aanu xoolaha bahwadaag la noqonin waa qodobka koobaad qodobka labaad aan jecelahay waxa weeye marka laga hadlayo faafreebka si runtii waxaanu ka hadlaynaa ay tusi taabsiin noqoto waa in lala beegsado oo lala raadsado waaqica siyaasadeed ee lagu nool yahay dunida maanta aanu ku noolahay qaylada ka soo yeedhaysa faafreebku isku mid ma aha waxa weeye waddamada qaarkood waxaa laga yaaba waxoogay xorriyadii inay ka jirto oo qofka loo oggolaado inuu wax qoro hadlo meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa dee nidaam siyaasadeed oo kalitalis ah oo waxa weeye caburin iyo cagajugleen ku taagani in waxa weeye ay jiraan marka runtii waxa fiican had iyo jeer faafreebka keligii inaan gaar loola bixine in lagu hoos daraaseeyo oo lala doonto xaaladda siyaasadeed ee lagu sugan yahay hadalladii ugu dambeysay hadda adeer cabdirashiidna waa ka muuqatay waxa leeyahay rashiid sheekh cabdullaahina waa ka muuqatay sheekh maxamedna wuu tilmaamay fiqiga islaamka waxaa ku jira waxa la dhahdaa alkhilaafa raashida waa nidaamka toolmoon toosan tayada leh ee dadkiisa waxa weeye u tura baa alkhilaafa raashida la yidhaahdaa laakiin fuqahada islaamku qaar badan oo ka mid ihi waxay yidhahdaan intaan khilaafa raashida la helin waa in la helo mujtamac raashid waa in bulsho toosan la helo sababtuna waxay tahay bulshada iyo dowladdu markay isla jaan qaadayaan ama bulshada iyo nidaamka siyaasadeed bulshadu iyadaa wax badan oo dowladdu ay faafreebi lahayd waxa iskaga gudbaayo culayska ka xigsanaya bulshadii uu talinayay haddii laakiin ay isla jaan qaadi kari waayaan
oo dawlad marka cadaalad darro nidaamka siyaasadeed meesha ka jira iyo iyo waxa weeye sadbursi iyo caburis isagu ku salaysan yahay warma fara badan oo ay bulshadu kaga gudbanaan lahayd baa toos u soo aadaya nidaamkina marka waxa weeye wuxuu naf moodayaa in marka isaguna dadka afka uu qabto oo car hadal uu yiraahdo halka marka waxa ka dhasha waxa carabtu maanta ay u yaqaanaan arriqaaba zaa'ifa in la helo faafreeb waxa weeye taban waana ka runtii mushkiladu ay ka taagan tahay taas marka waxa weeye waxay runtii aan qodobkan u xusaya waxa weeye faafreebku had iyo jeer macna wuxuu samaynayaa marka lagu daraaseeyo waaqica siyaasadeed uu ku nool yahay waa qodobka saddexaad qodobka labaad baan leeyahay qodobka saddexaad runtii aan jecelahay isagana doodeenu ka mid noqdo waxa weeye faafreebku asal ahaan mar waxa loo sameeyaa cidda la faafreebayo gef ay gasho oo la rabo in la saxo hadal doodii hore waad naga maqnayd qodobadaad ka hadashay oo dhan waa laga hadlay badankooda waa ka xumahay marka waxa weeyaan waa ku celin marka xitaa qodobada sheegayso dood labaad baa soo socoto saddexaad oo iyaduna tahay faafreeb nuuciya baa loo baahan yahay marka qadar waanu ku baahannahay waxaa muuqata waa ka xumahay tii horena haddaan idinla joogin inta dambana aydaan markii hore ka warbixinin waa ka xumaa inaan ku dhex dhaco marka aad baan uga xumahay insha allah dhib male tadamba marka u dhigan doona doodeeda marka qodobka ugu dambeeya gunaanadku ku soo dhawow gunaanadka wixii aad raacaysaa qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay waa ka xumahay runtii inaan dhabqiyo oo arrin si fiican u socotay inaan ku dhex dhaco laakiin qodobka ugu dambeeya waxa weeye waxa fiican in lagu baraarugsanaado marka faafreeb laga hadlayo ma cid wax qalade baa la saxaya mise cid ba iyadu ceebteeda iyo cawradeeda asturanaysa qodobka ugu muhiimsan weeye sababtoo ah faafreebkan inaga haddii laga yaabo dee taariikhaan nagu cusub yahay laakiin dib haddii loo aado taariikhii hore gaar ahaan waddamadan yurubta oo kale copernicus iyo galiiliye iyo ragga marka la tilmaamayo doodihii ka dhex dhacay waxa weeye kiniisadaha iyo nimankii yacni nimankaas waxay qaldeen waxa ka badnaa boqorrada iyo baadariyadu ceebta ay asturanayeen soo mararka qaarkood inaan lagu raad gadanin qofka hal abuurka ah in la dhawaa la faafreebayaa iyadoo ujeeddada ay tahay ceebo kale oo la dadaayo la dambabasaayo iyada laftigaan la isku qaldin wax meesha ku jira weeye mar labaad baan ka cudur daaranayaa waxa keenaya dabcan waxa weeye doodii hore aanan joogin marka aad baan uga cudur daaranaya mar labaad may khadarow waxa weeye waxaad sheegaysaa waa arrimo biya kama dhibcaana laakiin waxaad ku soo dhex dhacday doodii horead ka maqnayda ta soo socota marka waxay aad iyo aad qodobo aad u muhiimad hoosta ka calaamadisay sababta ciwaankan u dooranay faafreeb mise bilaa faafreebna waxa weeyaan wax kale maaha dadka qaar ba wuxuu fahansan inaan faafreebba loo baahanayn faafreebkuna dhinaculo nolosha ka mid uu gelaya oo waa wax xitaa qofka hadduu birmageeda yeeshaa faafreeba marka inayn dadkeenu u sii caddayno inay fahmaan oo waaqacooda iyo fahamkooda kor loo qaado ayuunbuu bartilmaameedkeenu ahaa marka hadal dooda dambe ayaad qayb ka noqonaysa muhiim ah oo insha allahu tacala noqon doonta faafreeb nooceeya ayaan u baahannahay iyadoo aanay meesha ka maqnayn inay xoogga saareen in bulshada la dhiso oo bulshadu iyada lafteedu qofku ka joogsado wixii aan u qalmayn ama magaranaysa bulshada dhibaato ku ah maxamed xirsi gunaanadka soo dhawow khadar oo aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii hadal la yaab laho xigmada ayaan halkaa khadar ka faa'iiday hadallada wada xigmad bay ahayn laakiin arrinta raad gadashada qudheeduna waa muhiim arrinta kale ee ah faafreeb iyo faafreeb la'aana in laysu miisaamo facan dambe ee kacay ee u aaminsan u arka in xorriyaddu in maaratan la caburin dadka ee wax walba la fasaxo iyo dadka iyagu u haliilaya qudhoodu in wax la faafreebo meesha dhexdooda in wax laga soo saaro sida ay caanuhu dhiig iyo uus uga soo dhex baxaan waxaynu doonaynaa inay halkaa dhexdooda uga soo baxaan baan runtii rabnay maanta hadalka rashiid wuxuu daarnanaa faafreebka haddii hoggaanka loo sii daayo wixii dhacay hadda bal eega iyo halkuu ina dhigay iyo wuxuu ina baday taasi waa mid ma noocaasaynu doonaynaa taas markaa dhinacaas aynu ka fiirino ayaynu ujeedadeenu ahayd laakiinse waxaynu dib ugu noqon doonaa su-aalahana faafreeb muxuu faafreebkan u baahanay waa nooce tusaale ahaan oo kale xagga waxbarashada ayaynu eegi doonaa bal hadda xagga waxbarashada faafreeb noocee baynu uga baahannahay waxyaala marka maaragtay insha allahu tacaala waa su-aalana way qoran yihiin su-aal gacmana way taagan yihiin laakiinse waktigii waxaynu dhaafnay 15 daqiiqo waxaana fiican isagoo weli aan la daalin oo la xiiseynayo barnaamijyada la dhameeyo saa daraaddeed
كحوم هاي برنامج كأركز مشتركين هذا نقطة ضمن وان بدون إن شاء الله تصور غير عشان دي لهي هذا أنتي نيو ما سي برنامج كنا والله فوها وتسيق بين كرتان وتسيق بين كرتان رشيد الشيخ عبد الله هنا آدي آدم ومع الغياب جزاك الله خير يا الله لا عاوز السؤال برنامج كلا قليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته